daawadayaal maantan waxaan idiin haynaa sheeko kale oo la yaab leh soo jiidasho leh faa'iido badanna ay ku sugan tahay dadka intooda badanna ay ka faa'iideysan karaan sheekadani waxaa ka sheekeeyey ninka ay ku dhacday wuxuuna yidhi kumaanan fikirin markii aan yaraa in laba cunug aan dhalay ay isguursan doonaan da'yar badan ayaa jirta oo dhalinyaro ah oo ragna leh dumarna leh oo weli aan guursan laga yaabee sheekadan haata aan ka sheekeynayo inay dhegeysanayaan da'yartaas weli aan guursanin qof qiyaasi karta ma lahan ilmihii uu dhalo markuu guursado kadib ilmahaas inay isguursan doonaan ama inay isguursan doonaan inay ku sigtaan qof oo arrintaas saadaalin kara ma lahan qof walba wuxuu jecel yahay inuu guursado mustaqbal fiican dhisto ilmo tarbiyeysan uu dhalo ilmihiisa mustaqbal ay u gaaraan isla markaas ilmihii uu dhalay kadib haddana ay noqdaan kuwo mustaqbal fiican leh diinta yaqaano maadiga yaqaano u soo duceeyo hadduu geeriyooda kadib adduunka anfaco aakhira ku anfaco owlaad noocaas oo kale inuu dhalo qof walba jecel yahay dadka qaarkood dadaalay sii bilaabaan oo marka hore ay sii dadaalaan inta aysan dhalin ka hor marka waxaa laga yaabaa dadaalkaas inuu ilaahay ku guuleeyo oo sidaas qofkii oo ilmihiisa ay ilmo fiican baari ku noqdaan culummada iyo dadka aqoonta lehna way ka hadleen inaa u fiirsato gabadhaa guursanaysid wiilkaa guursanaysid inaa u fiirsato laakiin sheekadan waa laga yaabaa qofka inuu dadaalay haddana arrinta ay ku dhacday marka sheekadan ninka ka sheekeeyey wuxuu ahaa tan markii soomaaliya ay dagaalada ay ka dhaceen ayuu ninkan iyo reerkiisa waxay kasoo qaxeen soomaaliya ayay ka qaxeen waxayna u qaxeen dalka kenya waxay galeen xuduudda kenya magaalada mandheera meel u dhow oo tuulo ah halkaasay degeen wiilka wuxuu ahaa wiil yar oo dhalinyaro u ahaa oo markaas soo qaangaarayo tuuladii ay waxay ka furteen ganacsi ay bilaabeen meeshay ganacsi ka bilaabeen asagii aabihiis marka dad ay qaraabo ahaayeen oo isku qabiil ay yihiin meesha hore usii degnaa aabihiisna asaga soomaaliya ku dhalay oo halkaas ayuu kusoo barbaaray soomaaliya ayuu ka shaqeyn jiray markii soomaaliya dagaalada ay ka dhaceen mandheera ayuu u guuray mandheera baadiyaheeda tuulo ku taalo ay degeen oo qaraabadiisa ay degan yihiin halkaasoo dukaan ka furtay dukaankii markuu ganacsi uu bilaabay marna dukaanka odaygaa gadi jiray marna magaalada dukaanka uga soo adeegi jireen marna beled xawe uga soo adeegi jireen marna wiilkaa soo adeegi jiray badanaa laakiin wiilkaa gadi jiray gabar waxaa jirtay ayadana baadiyaha shishe degan oo ciddeeda reer guura ahaayeen gabadhaas aabaheed ayaa tuulada imaan jiray oo wax alla wixii reerkiisa u baahan yihiin oo tuulada ka qaadi jiray baadiya u geyn jiray maalintii dambe odaygii waa caajisay socodkiia ka batay gabadhiisiyaa soo weynaatay oo qaangaartay maamadii oo ama hooyadii gabadha dhashay ayaa waxay usoo jeedisay inay macnaha gabadhiisa ay wado ay baxdo ay maanta soo adeegto gabadhii markay dukaankii tagtay ay soo adeegtay wiilkii sheekadan ay ku dhacday oo ka sheekeynayay iyo gabadhiiyaa meesha isku barteen shukaansiyaa bilowday xiriir jeceelay sameeyeen kabacdii gabadha wixii ka dambeeyey aabaheed waxay tiri aaba iska naso wixii hadda ka dambeeyo anaa reerka usoo adeega mar walba tuulada imaan jirtay si wiilkan ay u aragto ee usoo shukaansato ee iskula sheekaystaan sheekadii siday saas u ahaataba shukaansigooda u socdo markii dambe waxay isku soo qaadeen inay isguursadaan guuray isku soo bandhigeen guurkii markay isku soo bandhigeen kadib waxaa dhacday in wiilkii reerkoodii macnaha uu yiraahdo gabadhii uu yiraahdo reerkaada u sheeg waan kusoo doonaynaa aabaheyaan u sheegayaa waana kusoo doonaynaa sidaasaan ku guursanaa wiilkan waa wiil reer magaalo ah oo magaalada muqdisho ku dhashay oo kusoo barbaaray wax badan wax ku bartay laakiin tuulada intuu joogana waqti kale ay noqotay oo nolol kale ah dadka tuulada isku dhaqan ma aha inkasta oo la qabsaday haddana dadka baadiya deganna way kasii daran yihiin marka dhaqankii magaaladan wuu wataa dhaqankii kalena wax wuu ka fahmay maalintii dambe gabadhii ay soo doonteen gabadhii markay doonteen ay imaadeen gabadha qabiilkay ka dhalatay iyo qabiilka wiilkan uu ka dhashay ayaa xurguf hore ka dhexaysay xurguftii hore aa la sheegay waana loo diiday gabadhii waxaa la dhahay laguma siinaayo gabadhii way u imaatay wiilkii wuxuu dhahay jaceylkeena ka weyn wax walbo
maadaama reerkiina ay diideen aan isla fakano. wiilkii gabadhii waa isla fakadeen, way isguursadeen, waa isla fakadeen. markay isla guursadeen isla fakadeen, wiilka qabiilkiisii soo duulay, waxay u imaadeen gabadha ciddeeda, waxay dhaheen gabadhii aan iga soo doonanay waa inoo diideen, wiilkan iyo gabadheen hadda ma joogaan, maxaan sameynaa? ciddi kalena waxay dhaheen gabadhidii aan idiin diidnay xoog nooga wadateen, wiilkiina la fakaday, dagaala meesha ka bilowday. labada reer markay xabad isku bilaabeen ama dagaalkii uu dhacay uu qarxay, wiilkii wuxuu sameeyey iyo gabadhii reerka inay imaadaan way ku cuslaatay, duurkay sii galeen. duurkii ay isla joogi jireen ay isku qabeen, gabadhii uuray qaaday, ayadoo uur leh. wiilkii mar walba duurka oo la arki karin oo meel fogay galeen, nolosha duurkana way ku cusleed. gabadha nafteeda inkastoo reer guuraata ay shaqadaas fahmaysay, wiilku wuxuu ahaa wiil reer magaalo oo tuulo yimid. arrintan aad ay u dhibtay, waa ku cuslaatay. marka maalina libaax ku soo baxay, labadoodii libaaxii markoo inuu cuno oo damcay way iska celiyeen. ilaahay amarkiis labadooda way kala dhumeen, saasay ku kala dhumeen. gabadhii ayadoo lala fakaday oo uur leh way xamili weysay inay ku laabato ciddeedii, maadaama duur ay ku dhuntay. haddana way fahmi weysay meesha cidda ka jiraan. waxay socotaba magaalada Mandheer ay soo gashay. wiilkiina asagana waa lumay, wuxuu socda Mandheer uu soo galay, kadibna Nairobi uu soo aaday. Nairobi markuu imaaday kadib wuxuu sameeyey wiilal dhalinyaro oo horey isku aqoon jireen ayay is arkeen, wiilashii isla sheekaysteen. kadibna wuxuu aaday Mombasa ayuu aaday. meeshaasoo ganacsi ka bilaabay. naag kale uu ku guursaday. naag kale markuu guursaday kadibna waxay u dhashay gabar. naagtii oo hadda ka hor qabi jiray oo duurkii iyo dhibaatadii soo martayna oo waxaasoo dhan soo martana waxay dhashay gabar. naagtii kaloo Mombasa joogtana waxay dhashay wiil aan dhihi rabaa, wiil ayay u dhashay. marka ninkii ganacsigiisa u watay Sacuudiga wuxuu u aaday shaqo ayuu aaday oo Sacuudiga laga soo shaqeeyay. gabadhii uu ku dhalay Mombasa hooyadeed way dadaashay, nin kale maysan guursanin. jaceylkii wiilka u qabtay ilaalisay, gabadheeda mustaqbalkeeda ilaalisay, iskuulay geysay, waxbay bartay. dhibaatadii ay kusoo koristay iyo dhibka ay soo martay daraaddeed, gabadha markay qaangaartay oo iskuulka dugsiga sare ay dhammaysay, maamadii way jiratay, rafaad badan iyo jiraa ku dhacday. gabadha waxay ku tiri hooyoy, maadaama adigu aad jiran tahay oo rafaadkan iyo dhibkan ay igu soo korisay, aniga waa inaan kuu soo shaqeeyaa oo mustaqbal aan ku gaarsiiyaa oo wax alla wax aad jeceshahay aan kuu sameeyaa. gabadhi way baxday, waxay dhahday hooy shaqo raadsanaya. gabdho kale oo saaxiibada la sheekaysatay waxay u sheegeen magaalada Mombasa inay shaqo fiican jirto oo meeshaas hadday tagtay ay shaqo ka helayso. Mombasa ayay imaatay ayadoo dhaqaale fiican haysan, lacag gaari ku raacday haysanin. Mombasa magaalada markay saan u soo degtay, dadka tuugada laamiga jooga waxay arkeen gabadhan inay gabar dayacan tahay oo magaalada kala garanaynin, oo qof u jooga qaabka u socoto iyo darbigiisa u fiirinayso. way soo carareen tuugada qaar kamida, boorsadii waday ayaa laga dafay. wixii lacag ku jira, wixii dhar ku jira waa laga dafay. guri ay seexato ma taqaan, lacag ay haysato ma lahan, taleefon hooyadu kula xiriirto ma haysato. dhibaatadaas ayadoo qabto ilaahay amarkiis wiil Soomaali oo wadada maraya la kulmay. wiilkii wuxuu ku yiri walaalay, waxa uu egtahay qof dhibaataysan, aan ku wado guriga aan ku geeyo bax. wuu soo wada gurigooda u keenay. guriga markuu keenay hooyadiisa joogtay, hooyadiisa oo baray wuxuu dhahay gabadhan waa gabar Soomaaliyeed oo dhiban oo jidka ka soo waday. marka waxaan meeshan u keenay inaa waxa u qabatid. maamadii gabadha la sheekaysatay, waxa uu sheegtay hooyadooda dhibaataysan oo Mombasa degan inay ka soo tagtay, iskuul inay baratay, dugsi sare ay ka soo baxday, shaqana meeshan u soo raasatay. maamadu waxay ku tiri shaqo aan ku siiyo kuma hayo, haddii aad guriga nagala shaqaynayso lacagtii aan dadka booyaasada aan siin lahaa aan ku siinayo, waxaa cuntana meeshan ka helaysa, hadhow waxbarasho sii wada haddaa rabtidna shaqo kale ku sii raaso oo ku meel gaar meesha noqon. gabadhii way ka ogolaatay maadaama raashin ay helayso, lacag mushaar ay qaadanayso, hooyadeed u diri karto. meeshii shaqada ka bilowday. shaqadii waxay wadaba wiilkii dhalinyarada ahaa oo soo waday ayay isbarteen, labadooda ayaa haddana xiriir kale oo jecel dhex maray.
waxay wada socdaanba markii dambe waxay isku soo qaadeen inay isguursadaan. hooyadiis ayuu u bandhigay, hooyo wuxuu yidhi gabadhan inaan guursadaan rabaa. waxay tiri kheyr waayo, wax dhibaataa ma jiraan, waalidkii gabadhan dhalay ha loo waco. hooyadeed aad joogto keliya, waalid kale ma qabto. hooyadeed oo mandheero jirtay wacday, arrintii la socodsiisay. arooska waqtigii la dhigaya loo balamiyey. wiilkanna waa wiilkii aabeed dhalay, sacuudigu jiraa, asagana waxaa layidhi waa in la wacaa oo arrinta loo soo bandhiga. odaygina waa la wacay oo sacuudiga laga wacay, waxaa layidhi gabadha wiilkaada gabar gursan rabo imaw. hooyadiina mandheera ka imaatay, odaygina sacuudiga ayuu ka yimid. labada waxay u yimaadeen arooska caruurtooda inay ka qayb galaan. laakiinse markii arooska lasoo qabanqaabinayay maxaa meeshii ka dhacay? odayga sacuudiga markuu yimid wuxuu gartay maamadan mandheero ka timid, ilaa waa gabadhii jaceylka tuulada isla soo mareen, uurkana oo oga tegay. markay wada sheekaysteen, aaway gabadhay aa dhashay, aaway ilmihii ayay dhashay, yidhi gabadhaanaan dhalay tiri, gabadhaan adiga aabbo u ah. markaasuu yidhi wiilka in aroosa raba gabadhana anigaa aabbo u ah, ilaan labadaba waa walaalo, laba cunug oo walaalaa ay is aroosi rabeen. marka ninka sheekadan ka sheekeeyey wuxuu yidhi weligay kuma fikreen in caruurtayda ay is aroosi doonaan. waa sheekay la yaab leh. waxaan filayaa inaad aad iyo aad uga faa'iidaydeen. haddii aad sheekadan ka faa'iiday, fadlan subscribe saar channelka si aad waxyaabo kale oo markaas aad ka faa'iida aad kala kulanto, si ay dad kale uga faa'iidaanna share gareey, like saar. waad mahadsantihiin.